shirweyne lagu heshiisiinayo beelo walaalaha oo saddexdii maalin la soo dhaafay ka dhacay magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika. Shirkani oo lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ee reer Abdulle iyo reer Isxaaq oo ka wada tirsan Maxamed Zubeer, kuwaas oo soo kala dhex gashay hurguf xooggan kaasi oo sababay dhimasho iyo isqabqabsi badan. gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyay dilkani foosha xun ayaa la sheegay inay ka baxsadeen dalka Koonfur Afrika iyadoo beesha Absame iyo adeerkooda ay cod midaysan ku ansixiyeen inuu dhamaaday dhibkii ka dhaxeeyay labadan beelood ee walaalaha ah. haddaba waa kuwaana oday dhaqameedyadii mas'uuliyiintii madasha ka hadashay. soo dhaweynaya halkan gudoomiyaheennii caanka ahaa qooqaani la oran jiray ama la oran jiray Maxamed Cabdi Diiriye, gudoomiye qooqaani oo isaguna inoo akhriya wixii guddiga Absame iyo adeerkooda ay gaadheen dilkii marxuum Maxamed Rambo iyo guuldaradii ka timid in gacanta lagu dhigi waayo gacan ku dhiglayaashii in ay mas'uuliyadeeda ay leeyihiin beesha reer Abdulle kuna eedeysan. sidaa darteed guddigu wuxuu go'aamiyey xukunkan soo socda. kow, nimankii gacan ku dhiglayaasha ahaa waa dambiilayaal meel kasta iyo mar kasta oo la arko dibna uguma soo noqon karaan Koonfur Afrika. haddii lagu arko waa in dawladda gacanta loo geliyo. aniga oo ku hadlaya beesha reer Abdulle waxaan si guud aan qaadanay go'aankii la akhriyay ee la soo jeediyay ee ay gaadheen odayaasha beesha Absame iyo adeerkood. annagoo ah beesha reer Abdulle si buuxda ayaan u qaadanay. salaanka bacdi walaalayaal waxaan u mahadcelinayaa walaalahayo sidii awal baan ugu mahadcelinay ahayd wanaagga xakamaynta in ay xakameeyeen dhibkii meesha ka dhacay oo ayna wax tallaaba ka daba qaadin. waxyaalihii annagu aan meesha nalooga soo jeediyey waan qaadanay, siday yahaayeen baan u qaadanay. wax kaloo canaan ahoo aan walaalada u jeedinayaan ma jirto. qolyaha reer Saaq waxaan u malaynayaa wixii gacansiin ah ee adeegid ah ee kalsooni ah waan dhiibanay, saan u dhiibanay weeyaan. ilaahay baana mahadle. waxaa halkaasi duca daqiiqado badan qaadatay ka jeediyay Sheekh Bahjuddin oo ka mid ahaa wufuudii ka ambabaxday magaalada Cape Town, isagoo bilowgii hore xafladana ku furay wacdi aad qulubta dadweynihii ka soo qayb galay u bedelay. ilaahay oo gacmahan kor kuugu soo taagnay, addoommadaadii baan nahay, baryadaada ayaanu qiraynaa, adiga cidaahayna awoodnay inaysan jirin baan qiraynaa, keligaa baan ku caabudaynaa, wixii khayrkaa baan kaa reebaynaa. cibaado cid leh oo adiga ahayn ma jirto. ilaahay oo naxariistaada noo soo dejiye, amni iyo ammaan ilaahu noo soo dejiye, istacay quruntayda ilaahay oo geliye, sharka ilaahay oo naga qabo, shaydaanka ilaahay oo naga qabo. markii uu shirkan soo gabagaboobay ayaa la arkayay beelaha walaalaha ah oo isdhexgelaya iyagoo ismarxabeynaya, xabadkan isna saaraya. waxaana shirkani ka soo baxay qodobo dhowr ah oo la sheegay in dhowaan la ansixin doono. Cabdifataax Cali Samatar Sablaale, Somali Channel, South Africa.